Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeennii qiimiga badnaa ee tijaabi aqoontaada diimeed oo maanta ka bedelan sidii hore xiise gooni ahaana leh. Kadib markii ay walaalo ku xidhan channelka Ilayska Islaamka iga codsadeen inaan wax ka bedelo qaabkii aan u soo gudbiyey cashirkii hore. Haddii aad daawatay cashirkii hore, waxaan soo gudbinay 20 su'aalood iyo jawaabahoodii oo wada socda. Waxayna walaalahani iga codsadeen inaan soo gudbiyo su'aalo oo keli ah, jawaabahana aan uga tago akhyaarta iyo dadka khayrka jecel ee ku xidhan channelka. Waan ka aqbalay codsigooda. Insha Allahu cashirkeennana waxaan kusoo gudbinayaa su'aalo kooban oo aan badnayn sifa ay u fududaato in looga soo wada jawaabo insha Allah. Waana hubaa inaad kasoo jawaabi doontaan intiina badan biidnillaahi albaari, hadduu Ilaahay yidhaahdo. Sidoo kaleete walaal ka mid ah dadka sida tooska ugu xidhan channelka Ilayska Islaamka ayaa codsatay inaan u sameyno barnaamijkeennan waqti cayiman sifa loola wada socdo oo loogu xisaabtamo. Insha Allahu barnaamijkeenna wuxuu ku bixi doonaa qaab maalin dhaaf ah inta aan ku jirro bisha barakeysan ee Ramadaan. Wuxuuna bixi doonaa maalmaha tirada isla eg sida 2, 4, 6. Waxaana soo gelin doonaa salaada subax insha Allahu tacaala gadaasheeda. Maalinka aan hawada ka maqanahay ee aan barnaamijkan soo gelinayninna waxaan soo gudbin doonaa jawaabihiina. Aad baan u tixgelinaynaa insha Allahu tacaala. Isku day inaad ka faa'iidaysato barnaamijkan oo aad ku xidhnaato kana jawaabto wixii aad garanaysa insha Allahu tacaala. Waxaa baraarujin mudan maalinkayna barnaamijka lahayn een jawaabaha soo gudbinayno waxaan soo dhigi doonaa casarkii ilaa iyo afurkii hadduu alla raalli ka noqdo. Su'aalaheena maantana waxay ka kooban yihiin 6 su'aalood oo keli ah, welina qaab sahlan oo fudud oo aad u qurux badan aan isku weydiin doono. Su'aal waliba waxaan ku qoraynaa 3 jawaabood oo midna sax tahay 2na khalad tahay. Waxaa la rabaa marka inaad ka doorato jawaabta saxda ah. Waad fahantahay ayaan filayaa. Diyaar waa tahay. Waan bilaabanaynaa. Bisinka qabso insha Allah. سؤاشنا كوبادي مالتا. من هو قائل لولا أن الموت أتاني لجعلت كل الدول الأوروبية إسلامية؟ يوها قفكي لهاي هدي أونا ملك موتكي إيمان لهين أونا دمانين وحان كدقي لها دمان ودمد غير يورو دولة إسلامها. قف كاسي صدحنا قف متكدورة. موحوها صلاح الدين الأيوبي مس عمر بن الخطاب مس خالد بن وليد. جوابته عديق أيان نكاسوين. سؤاشنا لبعض. من أول من سمي القرآن مصحفا؟ يوها قفك أبوه الرئي أي قرآن كما عابا مصحف. قف كاسم عمر بن الخطاب وها مس أبو بكر الصديق مس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. جوابته عديق أيان نكاسوين. سؤاشنا سطحات. من هو النبي الذي صام عن الكلام ل3 أيام؟ وكان نبي كصوم هذلك 3 بري. من نبي الله صالح من نبي الله موسى سوى نبي الله زكريا. ونبي 3 بري هذلك كصومي من نبي صالح من نبي موسى من نبي زكريا. سؤاشنا أفراد. سورة تسمى بأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. سورة لو مقعابه هو يدي كتابك هو يدي قرآنك إيه والسبع المثاني وسورة دي ما بقرة ما فاتحة ما الرحمن با. جواب تعديل يا مكرمنا. سؤال الشناد. ما أول ذنب عصي الله به في السماء؟ وما حي دنبي أجوه الري إلهي سبحانه وتعالى السماء لقى عاسيه أما لقى قلب ما الشرك با ما الغيبة ومساء الحسد. ما الشرك إلهي والله شرك إله الغيبة قفك أو حسن رالكهن لقى شجاع سوى حاسد نموت. سؤال شو قدام بيسأل لحد. كم عدد أولو العزم من الرسل؟ رسول شان إيه 20 ee aan hore u soo sheegnay tiradooda
barnaamijkeennii hore ama ilaahay uu qur-aankiisa ku sheegay waxaa jirta qeyb la dhaho ulul casmi. qeybtaasi waa meeqa? ma 5 baa, ma 10 baa, mise waa 15? jawaabta waa dhinacaada. الإسلام ديني خير الديانات. الإسلام دين يبعث الحياة. يا ابن الإسلام سر أنت المقدام. الإسلام يئن جريحا في أرض فلسطين. الإسلام يئن